الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي اللحية طبناد هي كتاب كان تحفة المودود بأحكام المولود للإمام ابن القيم رحمه الله. مسألة الشيخ وكهذا ليه وكتاب كبابكي سجالات نكتر سن أو ختان كأها ومسألة دجاه من الدليلين كراه قبلها يويلش محاسة ودحية حكومة xukumka in dhagaha la duleeliyo gabdhaha gaar ahaan way bannaan tahay liziina qurux in gabdhaha loo duleeliyo ay wax ku xidhaan oo ay dhagahooda wax geliyaan waa arin nasa caleyhi alimaamu axmed waa cadeeyey hawsha iyada waxaa kaloo cadeeyey inay karaahiyad tahay wiilashana ayna wax fiican ahayn wax maslaxa ah oo ku jirta inay raggu dhagaha dalooshadaan ayna jirin bal waxay noqon kartaa tashbiih oo dumarkii oo la isku shabahay taasna rasuulku lacnad buu dusha uga tuuray dadka qaybta kale isku shabahda labada jinsi. Aisha radiyallahu anha yani dhagaha in la daloolin jiray oo dumarka ahayd wax jira xadiidkii Zarac oo 11kii dumarka ahaa ee waagi hore arintooda uu ka sheekay rasuulka sallallahu alayhi wa alihi wasallam iyo Aisha xadiidkii dheeraa Zarac ee macruufka ahaa waxaa kamid ahayd mid way dhagaheeda waxay tiri dhagahayga wuxuu ka buuxiyey dahab buu ka buuxiyey ilaa dahabku dhagaha sidaa uga dhaqdhaqaaqo marka rasuulku wuxuu ku yidhi sallallahu alayhi wasallam anigu waxaan ku noqon lahaa sida abi zarca zarca uu ahaa bimacnaa dhagahaaga saasaan ku ahay buu yidhi marka taasina waxay muujinaysaa inay tahay wax bannaan. midda kale saxiixaynka waxaa ku sugan Bukhaari iyo Muslim rasuulku markuu ciidaha oo kale ku booriyey dadka sadaqada gaar ahaan dumarka uu u gudbay oo si gaar ula hadlay inuu haweenku dhagahoodii ay ka soo fureen dahabkii ku xidhnaa ay ka soo fureen taasina waxay u tahay daliil in dhagihii marka ay dalooleen marka arintaasi arin waxay ahayd macruufa dadkii asxaabtahana dhexdooda macruufka ayay ahayd. ama ragga oo kale iyadu ma aha wax macruufa ma aha bal waxay noqon kartaa tashabuh cala rijaal ayay noqon kartaa. istidraad isxaaq ibn rahawiya aw rahawayhi baa waxaa la yidhaahdaa isagoo dhagahu u dalooshan yihiin buu dhashay wallahu aclam. alfadl ibn muusa baa wuxuu yidhi haddii ninkani wuxuu noqon doonaa ra'san ima fi lkhayr wa ima fi shar ama sharta ayuu noqon doonaa nin looga daydo ama khayrka ayuu noqon doonaa nin looga daydo. raximahullahu isxaaq ibnu rahawiya wuxuu noqday ra's ahla zamanihi fi lcilmi walxadiidi waltafsiir wasunna yacni nin xilligiisii zamankiisii lagu daydo xagga cilmiga looga dambeeyo xadiidka tafsiirka sunnada intoo dhan khuraasaan iyo dhulkaas oo dhanna ku wada faafiyey bidcadana la dagaalamay jahmiyadii maaragtay si fiican uga hortegay ilaa la yidhi haddii culimadii waaweyneyd ay joogi lahaayeen way ku wada dayan lahayn. imaamu axmed ibnu xambal wuxuu yusamiihi amiir almu'miniin buuba ku magacaabi jiray. masaa'il kale haddaynu waxoogaa baabkan aynu uga sii maadaama ay halkan soo geli karto sanka ma la daloolin karaa waxyaabo badan baa hadda dunida adduunka kusoo ziyaaday sanka in la dalooshado ayaa soo ziyaaday xuduntii baad arkaysaa oo la daloolinayaa la sheegaa iyadana oo jirta bishinta hoosaa la dalooliyaa carabkiibaa la dalooliyaa marka waxyaabahaas oo dhani waa waxyaabo adduunka kusoo wada ziyaaday. marka arinta marka la yidhaahdo dhagaha inay dumarku dalooshadaan masaladaas iyadu waa masale jirta oo dadka asxaabtana macruufka ahayd axaadiidta saxiixana deelaho gabdho inay dhagahooda kasoo furayeen dahabka ay ka muuqanayso. masalada sanka waxay leeyihiin culimadu haddii aan looga dayanaynin caadada dadka gaalada ah haddaan looga dayanaynin laba sharti bay leedahay inayna tashabuh aynoo gaalada aan looga dayanaynin iyo inaan dadka ajaanibta ayna u muuqanaynin oo dee loo muujin ilaa dhaguhuba ma muuqdaan oo xijaabkii bay ka hooseeyaan hadday labadaaba la heli karo oo ninkeeda oon gabadhu ay u muujin wax qurux dadka meeshaa joogana iyo xilligaana ay u arkaan wax ziini iyo qurux ah wax dhibaato ah male sida allajna daa'ima liliftaa oo sheekh ibn cabdilcasiis ibnu baas odayga ka ahaana sidaasay fatwoonayaan. laakiin haddii waxyaabahan kale oo iyaga la daldalooshado oo carab noqdo oo xudun noqdo oo bishinta hoose noqdo oo waxaas
waxaan shaki ku jirin inay tahay wax looga dayanayo, gaalada looga dayanayo. marka tashabuha gaaladuna wax bannaan noqon maayo. marka masalada hore nafteedana haddii ay tashabuh un laga wado, iyada nafteeda sankii inuusan banaanaanaynin baa muuqan. laakiin haddaan tashabuh laga wadin ziine iyo qurux ay tahay, dadka xilligaa jooga iyo wadankaa la joogana ayna u arkin wax dhibaato ah, wax dhiba ma yeelanayso. masale kale haddaan wax yar u idaafayno, qaliina laysku sameeyaa iyaguna tiro badan maanta oo dumarka gaar ahaan ay isku sameeyaan iyagoo isqurxinaya. qaliinka oo dhan haddii laisku daro dumarka lagu sameeyo, laba ayaa loo qaybinayaa. haddii uu yahay shay waxa la yidhaahdo ceeb la zuulinayo, maalan qofkii tuur buu leeyahay, waa la toosinayaa. lugtiibaa dhinac u qalo, waa la toosinayaa. 6 farood buu leeyahay, mid baa laga goynayaa. yacni waxyaabaha saas oo ilkihii buu maarata ilka tiro badan buu leeyahay, ilkihii raaraaraa ee la arki jiray iyo qayb baa laga saaraya. haddii ceeb la zuulinayo, qaliin kasta oo ceeb lagu zuulinin wuu bannaan yahay. laakiin qaliinkii qurux lagu raadinayo, waana sida hadda ay arrintu u badan tahay, kaasina ma bannaanaanayo. wallaahu aclam.